militariga Sacuudiga ayaa subaxnimadii Talaadada aynu ka soo gudubnay ku dhawaaqay inay weerar cirka ku qaadeen markab sidii hub iyo gaadiid dagaal kaasoo ku soo xirtay dekedda Bukalla oo ay gacanta ku hayaan maamulaan golaha koonfureed ee Yemen ee loo yaqaan STC. markabkan oo la sheegay inay dowladda Imaaraadka lahayd haddana dhinaca kale duqeyntan iyo weerarkan ka yimid dhinaca Sacuudiga ee lagu beegsaday markabkaas Imaaraadka lahaa waxay noqotay dhacdo la yaab ku noqotay dhammaan dunida Carabta caalamka iyo falanqeeyaasha siyaasadda. duqeyntan Sacuudiga waxay muujisay heerka aadka u sareeya ee uu gaaray khilaafka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga kuwaas oo ahaa saaxiibo si wada jir ah uga howlgala dalka Yemen siyaasad ahaan maamul ahaan iyo militari ahaan iyagoona 10kii sano ee ugu dambeeyay faragelintooda Yemen uu ahaa mid midaysan oo hal ujeedo lahaa iyagoo ka wada tirsan golaha isbahaysiga Carabta ee Yemen. si kastaba dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ku wada jirkooda isbahaysiga Carabta Yemen kama dhigin kuwo isku wada ujeedo ah taasi beddelkeeda mid kastoo iyaga ka mid ah wuxuu haystay fayl iyo dukumeentiyo qarsoodi ah kuwa oo ahaa qorshayaasha gaarka ah ee uu mid waliba ka lahaa dalka Yemen marka laga yimaado ujeedada guud oo ay ku mideysnaayeen. sidaas darteed dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo ujeedooyinkeeda gaarka fushanaysa waxay muddooyinkii dambe taageeraysay golaha koonfurta Yemen ee loo yaqaan STC wuxuuna Imaaraadku siiyey golahan taageero dhaqaale iyo hub waxayna tani keentay inay awoodeystaan oo ay muuqdaan halka dowladdii Yemen ee caalamka aqoonsanaa qarsoontay. dhaqdhaqaaqyadan Imaaraadka wada muddooyinkan waxay ka cadaysisay dowladda boqortooyada Sacuudiga iyadoo xalku maray gacan ka hadal haddana weerarkii Sacuudiga Talaadada waxaa barbar socday bayaan ka soo baxay dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay kaasoo dowladda Imaaraadka Carabta looga codsaday inay uga baxaan dalka Yemen muddo 24 saac gudahooda ah. sidoo kale bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Sacuudiga ayaa waxaa lagu sheegay in tilaabooyinka dowladda Imaaraadka Carabta ka wada koonfurta Yemen yahay kuwa halis ah waxayna intaas ku dareen Sacuudiga inay Imaaraadka Carabta ka jawaabaan codsiga dowladda Yemen ee ah inay muddo 24 saac uga baxaan dalka Yemen. haddaan dib kugu celiyo bayaankii dowladda Sacuudiga waxyaabaha ku jiray oo ku xusnaa waxaa ka mid ah in ciidamada golaha koonfureed Yemen ay halis ku yihiin amniga Sacuudiga waxayna dowladda Sacuudiga ku sheegtay bayaanka in ciidankan ay si joogto ah uga sameeyaan meelaha xuduudaha Sacuudiga oo Yemen la wadaago howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo militari. sidaas darteed Sacuudiga oo feejignaan gaar ah ku jira ayaa haddana ciidamadan u arkaa halis ku soo korortay agagaarkiisa. falanqeeyaasha qaar ayaa qaba in Sacuudiga shaki ka qabo in ciidankan Imaaraadka ku soo dhex dhuntaan kooxo kale si ay boqortooyada weerar uga qaadaan. Sacuudiga inkastoo Imaaraadka xulufo la yahay haddana rabitaankiisa ayaa ah in dowladda Yemen ee tagta daran misna caalamka aqoonsan yahay noqoto mid awood leh sidoo kalena guud ahaan maamulka Yemen gacanta ku dhigto oo la wareegto. balse taas mid ka duwan waxaa qaba dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa doonistiisu tahay in golaha koonfureed Yemen noqoto dalka madax bannaan Yemen inteeda kale tan oo ah mid ka soo horjeesanaysa siyaasadda Sacuudiga ee Yemen. haddana Imaaraadka ujeedadiisa ugu weyn ayaa ah in golaha koonfureed ee go'da inay siinayso fursado dhaqaale oo aad u badan.